digniin waa qabteen beesha ma jarteen ee dhaganayo oo codkayga soo gaari doono codkayga waa idin soo gaaraya haddii nabad la doonayo nabad haddii nagala doonayo odayaal aan leedihiin odayaasheena 15 goor bay gaalkacyo yimaadeen war dhag jalaq waa loo sii waayay annaga ceelay ma nihin iyo jareer la xasuuqayo mursadaana la yiraahdaa magaceena heredid lama yiraahdo heredidna lama yiraahdo adoo daarood ah oo ma jarteen ah hadan tarageena aan leysin waxaad ogaataa saqiir iyo habar iyo cunug oo xamar ku nool inuu naga baxsan ogaada cunug xamar ku nool saqiir habar waayeen ilaahu ma baalash la ahaado magac ma jarteen ninkii sheegtaa waa dileena ogaada midaas boqol nin oo ma jarteen oo dhamay haddii lixdaas nin mursade magaalada muqdisho ayuu nabad qara la keeni waay horena waa ugu hadalnay haddana waa ka hadlaynaa maalinka la toogto isku diyaariya ha u malaynaa in muqdisho kaliya laga barooranayo Puntlandna waa laga barooranaya ogaada midaas waxaa noo calaamadaysan ragga aan dili lahayn waa noo calaamadaysan meelay ku sugan yihiin ogna guryahoodan ogna inta wax shoona mursal inta dad laga dilay waligiisa ma seexa waxaan idin sheegaa raggayga in dib loogu soo celiyo ilmaadaradana haddii aan la keenina wallaahi oo billaahi oo tallaahi Soomaa ilaahan ku dhaartay ma jarteen xamar waa ka guura hal qof dambe xamar lagu arki ma adeer sayara waxa uu yiri gaalkacyo mursada maxaa keenay Soomaaliya ballan waxa ku qaadana in la yiraahdo ma jarteen maxaa xamar keen